السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولا ليال كلنتي وعنا وناكسن وتحنهني قصص وعبر أما قصوين لقوا نقاطه هي حلقة دي سي تضبات. حلقة تضبات إلهي سبحانه وتعالى هدي ويدم ما أنت وحان شعلها إن أنا حسوس تيد الدب والنقض قصة أمر دعدو dhagahayga ku soo dhacday aniga oo da'daydu ay tahay 9 jir ayaan jecelahay inaan dib u noqdo. qisadaasi walaalayaal waxa iga sheekeeyay ama aan ka dhageystay macallinkii malcamada ii dhigayay. Ilaahay ha xifdiyo wali uu nool yahay. macallinkaasi qisada uu inooga sheekeeyay maalinta waan xasuusanahay waxay ahayd maalin khamiisa. maalinta khamiista madrasadii aan dhigan jiray waxa caado iyo dabeecad u ahayd in ardayda aanba qisooyinkii salafka iyo markaa saxaabada looga sheekeeyo ama maalinta ardayga si practical oo ficila loo tuso cibaadooyinka sida salaada oo arday uu ku horweysaysto kuna hortukado ama cibaadooyin kale oo markaa practical loo barayo. waana usluub dhab ahaantii aad qofka u saameynaya una wanaagsan ubadkeena inaynu kala dhaqano. maalmaha kamid ah oo maalin khamiisa ahayd sidii caadada ahayd ayuu macallinku wuxuu noola soo galay kitaab ama risaalad yar. waan xasuusanahay risaalada waxaa dusha kaga qornayd almutakallimatu bilqur'aan, haweenaydii qur'aanka ku hadli jirtay. waxaa dusha kaga sawirnaa risaaladii dib umaan arag waxaa dusha kaga sawirnaa nin awr hogaaminaya amba tulud geela hogaaminaya oo qof dumari ay saaran tahay. risaalada markii aan dib u baadhay iyadii maan helin, laakiin qisadii culimo badan oo warinaysa amba kutub lagu warinaya ayaan arkay. qisadu waxay ahayd markaa gabadh kamida salafkii oo ku hadli jirtay qur'aanka ayay ku saabsanayd. waxaa markaa riwaayada ku qornayd kitaabka waxay ahayd in sheekha la yiraahdo Cabdullah ibn al-Mubarak waa sheekh caalima culimadii salafkee waaweyneedna kamid ahayd. waa sheekha in badan lagu xasuusto gabaygii la oran jiray yaa caabid al-haramayn law absartana la calimta annaka bil ibadati tal'abu. ninka sheekha ayaa wuxuu yiri maalin baan waxaan ka soo baxay magaalada Maka waqti markaa bishii xajka la dhaafay ama bishii Dhulqicda ay gabagaba tahay. waxa aan markaa meel miyi ah ku soo baxay haweenay amba qof dumar oo fadhida. waxa aan ku iri assalaamu calaykum. qofkii haweenayda ahayd waxay igu jawaabtay salaamun qawlan min rabbir rahiim. salaan iyo jawaabteedii oo noqotay aayad qur'aan oo suuratu yaasiin ku jirta. wuu fahmay ninkii sheekha ahaa inay salaantii ka qaaday. dabadeedna waxa uu yiri adoontii ilaahay maxaad halkan ka samaysanaysaa? waxa aad ka qabanaysid halkan miyiga waa maxay? waxay ugu jawaabtay man yudlilillahu fala hadiya lahu. qofkii ilaahay uu baadiyeeyo ee luma cid kale oo hanuunin kartaa ma jirto. sheekhi waxa uu hadalkeeda ka fahmay in ay markaa soo luntay amba ay dadkii ay la socotay ay ka luntay oo aanay garanayn jihooyinkii iyo markaa meeshii u socotay oo aanay awood u lahayn inay tagto. dabadeedna waxa uu weydiiyey imisa maalmood waxa uu weydiiyey markii hore xagee baad ka timi. waxa ay ugu jawaabtay subxaana alladii asraa bicabdihi laylan min almasjid alxaraam ila almasjid alaqsa. aayadaasay ugu jawaabtay. ilaahi waxa xumaan ka hufan ilaahi nabigiisa kasoo dheelmiyey masjid alxaraam masjid alaqsana keenay. waxa uu fahmay markaa inay xajka ka timi ayna u guriya noqonayso dhulkeedii oo magaalada Qudus ah. waxa uu ku yiri imise cishaad halkan joogtay? waxay tiri 3 layaalin sawiya, 3 habeen ayaan halkan joogay. waa aayad qur'aan. waxa uu weydiiyey maxaad ku weysaysanaysaa oo biyo ku ahaa? qisada amba su'aasha sheekha waxa aynu ka qaadanaynaa salafka inta aanay wax la quuto amba la cabo aanay isweydiin waxaa ku soo dhacaysay cibaadada.
dabadeedna waxa ay ugu jawaabtay cibaadadii iyo markii uu weydiiyey weese maxaa ku ahaa aad ku weesaysanaysay fain lam tajiduu maa'an fatayamamuu saciidan tayiba waxa aan ku boodhaysanayay ciidda oo markaa aan ku gebagabaysanayay waxa uu weydiiyey maxaad cunaysay waxay tidhi huma atimu asiyaama ila allayl yacni soonkii dhammaystira oo waan soomanaa ayuu markaa ka fahmay waxa uu weydiiyey markaa sheekhii oo su-aalihii uu ku waday wuxuu yidhi bishani bil rabadaan ma aha bilihii la soomi jirayna ma aha ee maxaad u soomaysay markaasay tihi waman tatawaca khayran fa ina allaha shaakirun caliim waa aayad qur'aan ah waa soon sunno ah oo aan faral ahayn ayaan soomanaabay tii waxa uu ku yidhi maxaad haddaba su-aal kasta oo aan ku weydiiyo aayad qur'aan aad igu jawaabaysaa sida aan u hadlaya maxaad ugu hadli weyday waxay tidhi maa yalfidu min qawlin ilaa ladayhi raqiibun catiid qofka afkiisa waxa ka soo baxa laba malag baa qoraya oo waa la ilaalinaya marka hadalka iga soo baxaya inuu qur'aan noqdo oo xaraf kasta oo aan ku hadlo ilaahay uu 10 ajar ii qoro ayaan doonayaa bay tidhi waxa uu sheekhii sii weydiiyey oo su-aalihii uu ku sii waday waxa uu ku yidhi xaas miyaad leedahay intaanu xaaska weydiinbu wuxuu weydiiyey yaa tahay adigu uu haybsaday waxay ugu jawaabtay walaa taqfu maa laysa laka bihi cilm wax aanad garanayn nabadgeliyo daa yacni in ay ka gaabsatay inay su-aasha uga jawaabto ayuu sheekhu fahmay oo ay weliba dhibsatay dabadeedna waxa uu yihi raalli ahow waxaan malaynayaa waan degdegay wax aani khusaynna waan galay waxa ay tidhi laa tahriiba calaykum alyawm yakfir allahu lakum aayad qur'aanay ugu jawaabtay waa jawaabtii nebi yuusuf calayhi assalaam iyo aabihii iyo walaalihii dhex martay markii ay markaa dembigoodii qirteen dabadeedna waxa uu ku yidhi ma ku qaadaa oo tuludan aan anigu wato ama gaadiidkan aan wato ma kuugu geeyaa dadkaa doonaysay waxay tidhi wamaa tafcaluu min khayrin fa ina allaha bihi caliim wixii aad khayr samaysaan ilaahay wuu ogyahay waa aayad qur'aan ay ugu jawaabtay dabadeedna awrkii buu u fadhiisiyey fuul buu yidhi dee nin baa soo eegaya waana qof dumara ma doonaysa in ceebteeda la arko waxa ay tidhi qul lilmu'miniina yaguduu min absaarihim mu'miniinta ku dhan nebi maxamedow indhahooga ha laabeen markaasuu wuxuu dareemay inay leedahay iga sii jeeso sheekhii wuu ka sii jeestay awrkii bay fuushay markii ay awrkii si wacan u fuushay ayaa waxa ay tidhi subxaana aladii sakhara lanaa haada wamaa kunaa lahu muqriniin aayaddii ilaa nabiguna sal slam uu ina baray in qofku marka uu gaadiidka fuulo uu akhristo oo ducada ahayd ayay akhrisay markaasuu fahmay inay awrkii saaran tahay awrkii buu markaa kaxeeyoo la yar degdegay ileen qoluu gaadhsiinayaayo xoogaa gabay iyo markaa geeraha uu waddada isku dhaafinayana wuu qaaday waxa ay markaa ugu jawaabtay oo ku tidhi waqsid fii mashyika
dad xaqa ku toosan oo xaqa ilaaliya rabbi hanaga dhigo isuna kaalmaysta. وصلى اللهم وسلم على سيدنا محمد.